لكن شري واحد كان على الماشى دقيه الجيس كان مقعد ورين شري الماشى وقتل ونهان أو إنه يسبب الشيء دقيه قيس ما دام اللي يديها الجيس ما دافع لا بصراحة سؤال بويدينا يا قدوميها شيء جاني waxaan weydiinayaa waxa tiri xuduud male fanaan yir muqdisho tagto hadiya geeska ka saaray eeg waa waxaan isqaban karin labaan isqaban karin kulli isma qaadsiyo waxaan doonayaa inaan yar ka hadlo hawshii xalay toole maxay raanay fanaaniintii la lahaa waxaan ka saarnay xidigaa geeska waxa weeye horta xidigaa geeska maanu garanayma markii hore waxaanu ku baranay ama nafarayna waxay ahaayeen labada fanaan anoo meherad daawanaysta كل كان دقيسني نوعان سمع عدا ميجي ترى الله تنا صادوا حيوان يزيزي مركا حدقة جيس ما نقرنين مركا راح يعيم لبضع نبام حيوان ينبري كل صومالي ده حتى الله فتمير باكتير وحوي حيوان ده واحد الله صارنا وحجرون أما هو ده حيوان نعيب لاقبه دكان مكنا قبل أوضل بسم الله الرحمن الرحيم وحن كهذا يا متقنا حدقة جيس كأو كوكعي وحنا فنانين تلوجو برن سومالان waxaan sheegayaa maamulka xidigaha geeska sidan waa loo dhaamaa in ma taqaana ay xabsoocaan ciyaaraan gobolada waxaan ka hadlayaa arrinkii xalay soo saareen xidigaha geeska arrinkaas oo ah inay fanaaniin ka saareen fanaaniin ugu soo daray fanaaniinta ka saareen waa kuwa nabar xidigaha geeska fanaaniinta ka saareen waa hal doorka fanaaniinta ummadda Soomaaliyeed يوسفنا أفرتبا وأفر فنان أو حاجة مسرحية أما حاجة هيصة أما حاجة ما درت دقيسة كونك سنة حتى لقد الفنانين تنقول حقيقيين كبت هذا هستيدا ما نتحقرين سياسة inkastoo ay jiraan aragtiyo kala duwan oo ku aadan arrintani ayaa durba waxa boorama ka bilaabmay ololaha jooji dhageysiga kooxda xidigaha geeska oo si adag farta loogu fiiqayo inay bartilmaameed ku noqdeen shakhsiyaad ka soo jeeda deegaanada galbeedka igada qabiil way dabar jareeyada qabiil way duleeyada igada qabiil qaran ideeqeeda waa xudur gumaysigu nagu dageeyada digdaatay kala daadsanaan igada diifiyo darxumo waa halkay daagtee igada qabiil qaran igada qabiil way dabar jaray igada qabiil way duleeyay igada qabiil qaran igada qabiil way dabar jaray